فعلا ليلى درتي لعبت انا كسيني لعبت الى درتي زباط daawada sida muuqaalka hordhiceysaba ka soo aragtay waa Rayaan Bajaaj oo dhaawac aad halis ah u gaaray, gaar ahaan in laisku dayayba in la rabo in dalkaasi Kenya lagu qaarjiyo, aadna in la rababa in loo dilo. Si xogaas iyo xoga sir ah ka soo kordhay si aan kula wadaago, fadlan subscribe-ta nagu caabi, waa please subscribe noo saar, muuqaalka noo like garee, wixii fikir ahna commentiga noola wadaag. saacadooyin yaroo kooban ayaa baraha bulshada muuqaal waxaa la keenay iyo dadka caancaanka oo daafaha dunida ka jooga Soomaalida ayaa baraha bulshada iyo WhatsApp-yada loogu diraya Rayaan Bajaaj oo dabaq lagu garaacayo, laba nin oo Kenyaatan ay aad u garaacayaan ay jirdilayaan. markii arinteedana baaris lagu sameeyo la tixraacay waxaa la ogaaday 3 gabdhood inay meesha geeyeen, mishinna loo rabay in meeshaaseti lagu dhex dilo, maadaama Rayaan Bajaaj bariyii ugu dambeeyay gabdhahan caan ee baraha bulshada soo qarxinaysay, muuqaalan ee ka keenaysay gabdhahaas oo qaarkoodna la sheegay meelay degan tahay inay ku soo degeen, qaarna ee muuqaalaba ka qabatay ee aad baraha bulshada u keenaysay, gaar ahaan live TikTok inay soo furatan ee caadi ee u soo qarxinaysay. dadka qaarna waxay leeyihiin Rayaan Bajaaj saygeedii hore ee Qamar Suudaani ayaa ka dambeeyay mishinkaas u dhigay. dadka badana maskaxda leh oo baraha bulshada aqliga iyo heybadda Ilaahay uu siiyana waxay leeyihiin Rayaan Bajaaj gabdho ee soo qarxinaysa ayaa jiro, gabdhahaas ayaa ka dambeeyeen in dabaqaas meeshaas la geeyo. gabdho badanna way jireen oo iskaashadeen. dadka qaarna waxay leeyihiin 3 gabdhood ayay ahaayeen, 3daas ayaa meesha geeyeen, 3daas ayaa ka dambeeyeen, maadaama gabdho badan ee isku dhacsanayeen oo muuqaaladooda meelaha ay wareejin jirtay ceebtooda ay jireen, ayadan ee mar la degnaayeen ee marba saaxiibo aayeen, markii dambena ee xurguf dhex martay maadaama dumar aayeen, ayadan ee saas ku soo qarxisay, ayagan eeba u dhaarsanayeen eesan u naxariisanin ee ka aarsadeen. marka balaha bulshada daawade hadda dadka badanaa way isla dhex maraan, laakiin Rayaan Bajaaj muuqaal aad u xun fool xun ayaa laga keenay, maadaama Facebook-yada iyo meelaha baraha bulshada la wareejinayo muuqaalka ayadoo la garaacayo, wejiga xataa aad loogu jirdilaa, sanka xataa dhiigaa ka socdo. waa muuqaal aan la fiirin karin. niman Kenyaata caadi ee garaacayaan, xataa sankeeda iyo inta wejigeeda cankeeda wejiga kababuud caadiya lagu garaacaa, qof surwaal jeemis xiranaa garaacayo. dadka badanaa hadda baraha bulshada qaarkood waxay isla dhex marayaan, dadka maskaxda leh waxay leeyihiin dabaqaas 3 gabdhood ayaa geeyeen, nimanaa loo sii balamiyey, waxaa la rabay in kow laga siiyo, tayaday ku badbaaday. markii 4 jeer mindida tooreeda la gelgeliyey waxaa loo maleynaya inay dhimatay, kadib gadaal waxaa laga ogaaday inay nooshahay. waa markii ugu horeysay oo hadda gabar caan ama baraha bulshada hadda zaa'id ayadana barii ugu dambeeya hadda loogu dhaarsanaa, haddana qorshihii la rabay la hergal, laakiin tayada ay wax ka dhineed. wixii ka soo kordha daawada waa kula wadaagi doonaa. fadlan waa naga codsi, janaalka subscribe noo dhe oo gambaleelka u furo, codsigaas ayaa wadanaa. muuqaalkana loo like garee, commentigana ibirta naga ilaaliyo oo wixii fikir ka qabtid commentiga noola wadaag daawada.